learners, welcome. This is Afla Academy. I'm teacher Masala. Today, as you see on the board, maanta saad ka arkaysiinba sabuurada waxaa meesha noo qoran wax la yiraahdo consonant and vowel. Casharkani wuxuu la socdaa casharkii kan ka horreeyay oo ahaa alphabetical order. Qaasatan ardayda ii sheegay page-ka ah channel-ka dadka subscribe inaad saaritid haddii aan joogtayna casharka si fiican inaad u akhrisato. Sida ciwaankeena oo ka muuqdo meesha waxaa noo qoran consonant and vowel. Consonant markii la yiraahdo maxaa la dhahaa, vowel maxaa la yiraahdaa? Consonant waxaa la yiraahdaa ereyga consonant waxaa weeye waa shibanayaal. Alphabetics markii la joogo ama Ingiriisku markii la joogo waxay u kala baxaan consonant iyo vowel. Consonants waxaa la yiraahdaa waa shibane. Consonants waxaa la yiraahdaa shibane. Ayaa la yiraahdaa shibane ayaa la yiraahdaa. Ereyga vowel asagana sidoo kaleeto waxaa la yiraahdaa shaqal. Labadaba waxay hoos tagaan xarfahaasi oo ah guud ahaan marka isugu daro 26 xaraf. 26 xaraf markaan joogno waxay u kala baxaan. Consonant-ku wuxuu u kala baxaa 20. Vowel-ka waxaa weeye 5 waaye. Ayadana waxaa weeye 21. Marka consonant-ku wuxuu ku saabsan yahay 21 xaraf. Vowel-kan wuxuu ku saabsan yahay 5 xaraf. Guud ahaan markii la isku daro waxay ku imaanayaan 26 xaraf ama letters. We must know intaan horta inaan ogaano waaye. After markaan ogaano wixii ay kala yihiin sidoo kaleeto waan arki doonaa ayadana haddii la yiraahdo. Marka consonant-ku sida la sheegnayba guud ahaan iyo shaqalka markii isku daro aan dhaxnay 21 xaraf 26 xaraf weeye. Markaan kala qaadana consonant wuxuu noqonayaa 21. Vowel-kan wuxuu noqonayaa 5 xaraf. Guud ahaan markii isku darana waxay noqonaysaa 26 xaraf bay isku imaanayaan dhammaantooda markii isku wada daro. Marka consonant-ku maxaa ka mid ah marka? Yani erey consonant-ga la sheegayo ama shibanayaasha maxaa ka mid ah? Shibanayaasha la sheegayo waxaa ka mid ah B ayay ka bilaabataa. Erey shibanaha wuxuu ka bilaabaa B. Sidoo kale waxaa ku xigo C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Intaan ayaa waxaa la isku yiraahdaa consonant sounds. Consonant sound la sheegayo waa intaan. Markaad tirada waxay isku imaanayaan waxaa la rabaa 21 inay isku imaadaan. Hadday isku imaan waayaan 21 xaraf waa qalad. Aan tirino marka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Guud ahaan waxaa weeye 21 xaraf weeye. There are 21 letters. Marka waxaan dhahnay consonant-ku oo ah shibanayaasha ah oo ku saabsan 21-dan ayay waxay sameynayaan marka yani dhawaaq ama erey dhameystiran. Laakiin ereygaas ma shaqayn karo hadduu ka maqan yahay vowel. Vowel-kan ayagana maxaa ka mid ah marka? Let's see the vowel words ama vowel letters. Vowel aan fiirna ayagana. Vowel-ku waxaa weeye waa xarfaha
ay sameynayaan ereygu inuu noqdo erey dhammaystiran ama erey sameyn kara micno dhammaystiran. For example now, haddii meeshan aan ku qoro boy, for example meeshan waxaan ku qoray boy. That letter ama that word boy markaan kala qaado, this one wuxuu noqonayaa consonant, kan wuxuu noqonayaa vowel, kan wuxuu noqonayaa consonant. Yes, saa marka u kala qaano. For example now, haddaan ka saaro boy waxay noqonaysaa pie. And in English, we don't have something called pie itself. Yes. Then now we have by the time. Yes. So, and it doesn't make sense. wax micno xambaarsan ama dhammaystiran ma samayn karto. So sida daraadeeda waa inay xambaarsanaataa vowel. Like that's good your pen amal. Look here, we have E. Here waa vowel. Haddii aan ka saaro E haddaan ka saaro itakuwa PN. And then PN meel ay ku qoran tahay ma jirto maho. Haddii la dhaho abbreviation haddii loo gooni waay, laakiin there is no way. Then for example now, vowelka haddaan fiirno waxaa ka mid ah wixii inta ka maqan oo alphabeticska ay ka maqan yihiin waxaa la yidhahdaa vowel. Waxaa ka mid ah A. Okay, waxaan ku xigo E. Waxaan ku xigo I, O, iyo U. They are these 5 letters. Shantan xaraf ayaa waxaa isku yiraahdaa vowel sounds. Marka shantan xaraf markaan joogno A, E, I, O, U dan they are total number of 5. Tidooda guud waxay isku noqonayaan 5 number ayay isku noqonayaan. Shantan iyo 21 markii la isku daro marka waxay ku imaanaysaa 26 xaraf. Because sababtoo goona loo bixiyay waxaa weeye ma shaqayn karo ereygood la'aantooda marka. For example, haddaan rabo inaan qoro waxaan rabaa inaan qoro Maxamed oo kaleeto. Maxamed aan qorayaa soo ma? Like Maxamed. Okay, if I just E and ka saaro, so here we have E, here we have A, and here we have A. Look, haddaan ka saaro A, and ka saaro A, and ka saaro E, haddii la aqriyo they can't be read. Lama aqrin karo. So that is why marka aan u isticmaalayno harfaha shaqalku. Meelahooda waxaa weeye inay sameeyaan sense. Micno inay sameeyaan alaga loogu talagalay. For example in a word is haddaan tusaale aan ka bixiyo. Example in a word. Waxaa ka mid ah like pork, like pencil, like rubber. I'm a sun. Let's use sun. Sun. Look here. This one we know is a pork. Yeah? This one is what? This one is a pork. Yeah, this one is a pork. And this one is a pencil. And this one is what? A sun. This is also a sun. So from there now, when we have this one, here we have double O. This is a vowel sound. Here we have E and I, it's a vowel sound. And here we have U, it's a vowel sound. Yes. So, book waxaa weeye waa buuga caadiga ah. Pencil waxaa weeye waa qalin qori. Sun waxaa weeye qorax. For example, haddii meeshan aan dhaho, does it make sense? Ina ma sameynay? Maya, lama aqrin karo. Haddaan dhaho pencil, haddaan dhaho pork, yeah, we have. So, for like pork, haddaan dhaho consonant haddaan ka saaro waxay noqonaysaa PK. Here waxay noqonaysaa BNCL. And here waxay noqonaysaa SN. So, labadan ayaan rabnay inaan ku barano maanta casharkeena. Fadlan channelka dadka cusub tahay sawiraan kuu sheego subscribe. Haddii horaan joogteena like, share, and comment waa dhankaaga insha Allah.